wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa ku dhawaaqay guddiga dib u heshiisiinta deegaanada maamulka Galmudug. Guddigan uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka kooban yahay 12 xubnood, waxaana kamid ah guddiga uu magacaabay wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyow, kaas oo ku jira guddiga uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in guddigan ay ka kala yimaadeen qabaa'ilada deegaanada maamulka Galmudug iyo hal xubin oo ay wadato dawladda federaalka Soomaaliya. wasiirka oo warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ayaa wax uu akhriyay war-saxaafadeedka uu ku magacaabay guddiga dib u heshiisiinta deegaanada maamulka Galmudug. Dhismaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta markuu dhageystay tala bixinta mas'uuliyiinta Galmudug ku matala golayaasha qaranka ee heer federaal iyo heer dawlad goboleed, markuu dhageystay dhaqanka culimada waxgaradka iyo dhammaan bulshada reer Galmudug, markuu arkay baahida loo qabo dib u heshiisiin iyo isu soo dhaweyn dhexmarta shacabka Galmudug. magacyada xubnaha guddiga: 1 Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyow, 2 Maxamed Nuur Gacal, 3 Aadan Cusmaan Xuseen, 4 Maxamed Maxamuud Gacma Dheere, 5 Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, 6 Xasan Maxamed Jimcaale, 7 Ambaasadar Cabdi Xaaji Liibaan Dhabancad, 8 Faadumo Axmed Caalin Cureeji, 9 Cabdi Maxamed Jaamac. guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta Galmudug waxay u xil saaran yihiin xiriirka beelaha, soo ururinta iyo isu keenida ergooyinka beelaha ku mathalaya shirweynaha, daadihinta shirka iyo xaqiijinta qaabkii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka bulsho iyo kuwa siyaasadeed ee ka dhex jira beelaha Galmudug. qodobka 5 guddiga waxaa la howlgelaya xoghayn ka wakiil ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo si siman ula shaqayn doonta guddiga qabanqaabada shirka iyo shirweynaha labadaba. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo la hadlay odayaasha dhaqanka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu kula dardaarmay inay ka qayb qaataan dib u dhiska maamulka Galmudug, isla markaana ay soo dhaweeyaan dadka walaalahooda oo ku sugan magaalooyinka deegaanada maamulka Galmudug. maadaama marka idinku aad tihiin dadkii gobasha fidinay inaad gobasha fidisaan, dadka soo dhaweysaan, qalbi fiican u furtaan waa noo sheegteen. waxaa la rabaa weliba qof walba oo dhib sheegtay inaad guryahooda ugu tagtaan, degmadooda ugu tagtaan, meel walba ugu tagtaan, sababtoo ah leeskuma haysto Dhuusamareeb inay tahay magaalo madaxda Galmudug. waxaa leesku haystaa ma laga shaqaysiin karaa, taasna idinkaa la idinka rabaa. dad Soomaaliyeed oo walaalihiina mustaqbalkoodu inuu ku xiran yahay idinku sidaa wax u ogolaatiin, idinku sidaas ugu tanaasushiin. sharaftii iyo karaamadii Galmudug waxay ku xiran tahay in qof walba oo dhibaato haysato oo maanta aaminsan joogitaanka anigaan idinla joogo iyaga mustaqbalkooda inuu wax ka tarayo. haddii aan rajadaas ka baabeeno waa rajo annaga aan ku ciyaarno. waqtiga la isugu faani jiray tiknikada waa la soo dhaafay, waqtiga hubka waa la soo dhaafay, waqtiga maskaxda lagu dagaalami jiraa la joogaa reer Galmudug. ku dhawaaqista wasiirka arrimaha gudaha guddiga dib u heshiisiinta deegaanada maamulka Galmudug iyo hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa wax uu imaanaya xilli ay ku sugan yihiin magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, halkaasi oo maalmihii dambe ay ka wadeen sidii la iskugu keeni lahaa dadka deegaanada maamulka Galmudug iyo sidii loo dhisi lahaa maamulka Galmudug.